بيغش 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 in aad u xun ayaa maantay waxay ka dhacday dalka Kenya gaar ahaan xaafadda Islii. Soomaalida ku dhaqan dalka Kenya ayaa dhibaato badan kala kulanta booliska dalkaas, laakiin maanta ay ugu darneed dadkii ku ganacsanayay laamiga dhinaciisa ayaa booliska dalka Kenya waxay ku buufiyeen sunta ka ilmeysiisa dadka. Wallahi arrintan waa arrin aad u cajiib ah, maxaa yeelay arrintan waxaa sabab weyn u ah burburka ku dhacay dalkeena. Ka hor intaan u gelin mowduucan, fadlan subscribe saar channelka, muuqaalkana like saar, mahadsanidin. arrintan xanuunka badan leh ayaa waxay dhacday saaka abaara 4 saac, taasoo dadka ayagoo aan ka warqabin hal mar boolisku ay ku boobeen sunta ka ilmeysiisa dadka. dhibaato badan ayaa kala kulmeen hooyooyin iyo caruur u badnaa dadka maanta lagu buufiyay sunta. fadlan nala daawo muuqaalkan aadka u xanuunka badan leh. لا إله إلا الله. بيغش 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 لا إله إلا الله. صار وجهك ugu xiran yahay tiigaas darteeda heerkana gaarnaysa حسن والله دي زعل والله الطريق اللي قاعد اشتغل صار ابو صار راح اي نيروبي سن على طول indhaha dadka abo wala kala ordaya wala isli maanta wala kacsan yahay baaskarta kacsan sunta amal wiligay markaa